السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتو عنا وناكسن إذا أهانتين بمل والبعض نقدر ونسان كسر هذا برنامج كعد كشعب كتضوات كيف هذا وكلات كداوتنا تيفي كل سنة استوديو سم مقالة نيروبي سدا دارك سان داودي على فربنا أي برنامج كمان تيجي قيب قال يا داودا أوجه هريا يدين عيجا كسجن مقعجة مقعجة داير حسن عبد الله ها جوركا وحكورتها كان صواب بدن waxaa ka mid ah tan koowaad xagga family-ga oo dib badan ka taagan yahay maadaama qof ay isjeceshiin xiriir ka dhaxeeyo marka uu la imaatay qofka ma guursanaya oo ku ogoleen barna qabiil ku diidayo marka waxyaalo badan macna ka hortaagan sida waalidku kale mid kale waxay tahay danto kale maadaama waxba aadaysan guurka wax uu macnaha oo ku tirayo ma lahan waayo waxa imaanaya dib badan imaanayo maxaa la dhahaa waxa loo baahan yahay marka gurisidoo kale ina family-ga dhaqan kartid oo reerkaaga dhis kartid maaga biila kartid waayo markaas waxay ka cabsadaan dhanka waalidka iyo xagga qabiilka marka waxaa la yaab qabiilka macnaha qofkan reer hebel waayo camal iska dhaaf ma ku qalanta camal marka waxaa la yahay dadka waalidiinta inay qabiilada iska dhaafaan waa ilmooda waxay loo imaadaan inay ku daraan inay ugu duceeyaan macnaha aniga ugu talin lahaa taas oo xagga qabiilka iyo xagga macnaha waalidka lacagta ayadana way jirtaa beenta ma ahan waxa jirto adoo macnaha qof dhalinyaro oo jiilkaaga camal ah inaad gursan kartid laakiin waxa arkaysaa qofka weyn camal oo adiga ku tisbo macnaha ku soo raadsanayo ku dhahayo ana ku rabo camal oo xagga lacagta kugu jiidanayo marka lacagta iyo jacaylka macnaha laba farqi waaye marka ana xaggayga dhanka lacagta macnaha waxa leeyahay yaa loo badanin xagga dhalinyarada macnaha in loo bato waalidkana waxa kula tiri lahaa inay macnaha dhalinyarada waxay u keensadaan ay ku daraan inay ugu duceeyaan ay qabiil lacag ay u fiirin magacayga Fuad Maxamed Nuur waaye waxaan ku noolahay Kenya gaar ahaan xaafadda Soomaaliyeed u badan tahay Islii يعني عقبات بدن أجر جور هدي لدوم تقنا جور ترى مفروض سيد لو قدم أو لو قلم مفروض مرك عقبات بدن أجره عقبات صحاق مد ودروفته مدني ووالدك من وحوى لبض قف أنت أساسا إسلا سعنايان إسلا سعدان وكلا تجايان نك وحال أركا دادي سويناتي مس قبل دادي ويناتي عقبات جود ودين عس دلنا أنت بدنا وحاول دنك ظروف تلوا واحد بدنا قرطة مد وحاوي وإلىكم بدنا ما أنت دنك دو جور ربا أو فملك لو تجاه العائلة سكروا دنك كلنا وحاول قربة للجوا قربي هذا وقت وين تكيني سمر ولا وذا الجوا ما يوحنو ما يقرب على الجوا وطن الإسلام من داجك متقنا قرنا قوم فوضانا يو مركا إلىكم مدن قرنا قوم فوضانا يو عبس بدنا وإيمانه ما عيقوا عشان عبد حاشي هذا ويديسان دلنيرada waxa guurka ka hortaagan waxyaalo badan ba caqabad ku ah dhallinyarada waxa kamid ah shaqo la'aanta iyo qarash la'aanta shaqo la'aanta kamid ah waa ogtiin wadankeena waddan Soomaaliyeed wadankeena Soomaaliyeed sida uu yahay dhaqaalihiisa waa ka warqabtaan iyo sida uu yahay waa aragteen baday si jiirayaan waxana waxaas keentay waa gaajo iyo shaqo la'aan ba keentay kow dhaqaale badanna ma haystaan sidaas sababta ugu weyn oo keentay in dhalinyarada Soomaaliyeed ay guurka ay uga hakadaan waxyaalaha noocaas ah ba ku jirta oo u badan tahay hadii ay dhacdo wiilka asagoo lacagta waxa weeye dhar waxa kalena caqabad kalena way jirtaa ninkii soo dhalinyaro oo lacagna haysta guursadana waxa dhici karta in asagana dabeecadda xageedana ay wax si wax ka noqdaan waa dhici karta marka lama yaabi karo oo hadda reerku saas ku dumo oo dabeecadda gabadha si ka noqota ama wiilku ay si ka noqota ayadana waa la oran karaa laakiin caqabadda ugu weyn waa shaqo la'aantaas iyo gaajadaas weey iyo dhibkaas iyo rafaadkaas weey waxa inta caqabadda ugu weyn oo ay dhalinyaro la guursan la yihiin taas ugu maya taas hadda waxay ahayd waayii hore cusriyadu ay jirtay oo waxyaalaha hore wixii horena waa laga gudba oo hadda 10 sano ugu dambeysay
soomaalidu waxyaalay qabiilkii iyo kan qabiilree hebel weeye iyo kan waa boon iyo kan waa xagga fulaan iyo waxaas waa laga gudbo dadku horumar bay gaareen waxmaana la fahmay waxaas wax ay jaahilnimaday ahayd marka waxa loo aanayn karo waa qarash la'aanta bas laakiin wax kale dhib hadda dhib kale taagan ma jiro aan midaas ahayn hadda wax iga weydiiseen ayo Ismaaciil Salaad Abdulle gurka waxaa ku hor waxaa isdhigi karaa hadda adduunka hadda dadka waxbarasho bilaabana Soomaalida marka hore waxbarashada ku yareed gabdhaha Soomaaliyeed xaafadda isku joogi jireen ragga le iskuul laga jiray wiilasha si ognahay laakiin hadda gabdhihii wiilashii kulli iskuul lagu mashquuliyay gabar kasta iyo wiil kasta waxay rabtaa jaamacad heer jaamacad ayadoo dhameenin ama wiil kasta jaamacad gaarin ma gursan karo mid labaad waxaa isdhaaya gabdhihii Soomaaliya sanadka waxay rabaan lacag jaceelku iska dhaafay lacag ay rabaan haddana gabdhaha badanaa waalidiintooda ku daraan wiilasha u raadiyaan intaasaas dhahaya caqabad ugu weyn waxaas dheena hadda nin lacag la iska imaanayo oo weyn gabadh caqabadeena waa lacagga gabadh adoo oo la sheekaysanaysto waxaa maqlaysaa Britain ka xidi waay maxaa la wiilaa Mareykanka imaaday nin lacag loo haddana ejkiisa oo iska weyn yahay ya ma aan wili ma dhacin aniga Faarax Cali baa la yiraahdaa ku magac dheer Faarax yare dhibaatada guurka haysato waxaa waaye gabdhaha iyo laba maado labadaba way ku guur waayeen mid waxaa weeye kaashay rabaan gabdhaha qiimaha leh kaashay rabaan dhibaatada kale waxaa waaye gabdhaha qaarkood rag uma qalmaanba sababtoo meeshan magaalo weyn waaye dhibaatooyin gabdhaha Nairobi ku haysto balwada caqabada wiilasha iyo gabdhaha guurka ka hor imaanaya waxaa waaye gabadha lacag badan ay rabtaa in lagu bixiyo kaash in lagu bixiyo ayadana ragana ma hayaan kaashka farada badnaa caqabadaas dhibka haysata taas waaye maxaa kale weydiinaysaa magacaygu waa Cabdisamad horta waa idin mahad celinaya Kalsan TV baan u malaynayaa inuu yahay wiligay meedii kama hadla maanta ka hor hadda ugu horeysa xogaa cabsin waan dareemayaa marka su'aasha iigu celiyo raalli ah wallaahi qof walba tiisa haysato dadka isku mid ma aha wallaahi horta caqabadu way fara badan yihiin shakhsi walba tiisa haysato qof waxbarasho ku jira waqti uu haynin qof hami kale uu leeyahay oo waxa laga yaabaa mid meelahaas jirto inuu naawilayo sugayo oo balanka ma qof gabadha balanka la dhaxaysa mesela gabadhi waxa baranaysaa ama qurbahay jirtay uu sugayaa asoo interest gareynaya macnaha nolol ka fiican armaad heshaa oo macnaha wadamadaas oo kale doora galbeedka qof kale ma jirta Soomaali ahaan waa ayadana waa qodobka kalena wuxuu yahay shaqo la'aanta Soomaali ahaan anaga Soomaali baan moogta Soomaalidana ama Kenya ha joogto ama meel kale ha joogto wadamadan East Africa ha joogto kullay dhibaatada wada haysto waa shaqo la'aan shaqo la'aan qofka hadduu joogo wadankiisa oo dawladda u dhisan tahay oo subax ka baxay gurigiisa oo xafiis dawladeed ama uu ka soo shaqeynayo shirkad wadankiisa ku taalo ha ka qaatay $200 ama $150 oo joogta uu helayo dabcan gursan karaa taasna waxa weeye waa amni darrada burburka wadanka ku dhacay shaqo la'aanta marka waxaan aaminsan haddii wadanka hagaago dawlad dhalato dhalinyarada waxa weeye gurigiisa ka soo toosi karo heli kara shaqo ha yaraato oo joogta ah hubo mushaar joogta dabcan la gursan karaa qofku uu maareyn karaa marka nolosha waa dawlad la'aanta iyo burburka sabab u ah marka caqabad kale ma jirta aaminsana haddii la helo nabad waa hagaagaysaa waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan dadka Soomaaliyeed iyo Kalsan TV dhammaantiin waan salaama salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa Saciid Cabdiraxmaan Cabdi su'aashaas ay weydiisay horta waa su'aal muhiim oo wanaagsan in la isweydiiyo waxyaalo badan caqabado badan ah hortaagan dhalinyarada inay guursadaan sida lacag la'aanta shaqo la'aanta oo Afrika in badan dhibaato badan ku haysa shaqo la'aanta mid kale waxa jirta waalidiinta xagga family-ga inay ka timaado gabadha ha ahaato
wiil ama intuu iskuul la soo akhristay ama ayaan dhan isla soo jeclaayeen aan jaceylkooda lagu saboodgaraynayn oo nin lacagle laga raadsanayo ama maraykan ha ka yimaado ama ganacsada ha ahaade ama shirkad ha u shaqeeyo marka waxyaalo badanaa jira oo dhallinyarada haysto marka maseejkan waalidiinta ugu diraya waxa waaye waalidiinta inay ciyaalkooda ay ku saboodgareeyaan ama gabar ha ahaado ama wiil ha ahaado inay ku saboodgareeyaan jaceylkooda oo qofka hanti la'aan laguma naco inuu hantidiisa marna waaridka waxaan leeyahay iyo isla lacagta fiirin ee qofkii ama gabadhiisa ama wiilkiisa farxad sii kara waa inay ku saboodgareeyaan oo midda labaad waxaa jirta gabadhaadii oo wax baratay ama wiilkaagii oo wax baratay gabadhaadii wax baratay waxaa arkay say wax u soo baranaysa jaamacad heer jaamacad markay marayso nin madhaasi karanaya ama kabatulaya in lagu daro waxaasoo kale ma fiicna marka qofkay doorato dooqeeda waa inay ka ciyaartaa qof walba wiilkan adna waxaan leeyahay wiil ha noqon mid maxaan ku yidhahdaa gacanta loo hayo gabar waa qof mas-uuligaya waa loo hay karaa labadii jecel ha la isku daayo jaceylka ha la saboodgareeyo waaridka dadka dhallinyarada inuu ka leexdo jacaylkiisa ku saboodgareeyaan ugu waaqaya marka waa ku salaama aabbaay magacayga Kawsar Black dhalinyarada inta badan caqabada ku koristaato ani waxa isleeyahay ka fikirkayga lacag la'aanta amay tahay laano nin lacag la hadoo jiri lahay wal gursa lahay baaga moodada akeenaysa saas leeyahay fikirkayga wiilka maadaama uu lacag haysan waxa leedahay gurkiisa ma dhacay ha adiga ahaan maanta saaxiibkaad oo lacag haysan nin kale oo lacag la raacin si fiican ha odab ha ahaade si fiican marka ma adiga diiday lacag la'aanta ma maya familka ma ahane علشان noloshaada qof oo ka fikira fiican saa isla yani fikirkayga oo noloshaada ka fikiro jaceelkaas ay ma karsa aaminsanay wax oo la abuuri karo waaye ninka adaa hananaysid soo maaha ha si fiican adaa mudan magacaaga ayaan dhalinyarada inta badan guurka maxaa ku haystaa guurka waxa u diiday kalsoon xumo way aamin weysan yihiin qofka run ku sheegay inay been ku sheegay amalaysa qofka run ku sheegay inay been ku sheegay amalaysa kalsoon xumo ayaa ka caqabada ugu weyn maxay noqon kartaa inay wari shaqaystaan gabdhaha inay shaqaystaan business isku darsadaan kabacdina isku guursadaan ha kabacdina isku guursadaan ganacsi bilaa ayaga u sufaanin karin haddii aan haysto oo ugu dari lahaa dhalinyarada waxaa guurka ka hortaagan dhaqaale yari midda koowaad waa midda labaad waxaa waaye qof meel u muuqato meel ka qarsoon badan annaga lacagaa noo muuqato dumarkuna lacagay rabaan haddaan annagu lacag haysano dumarka maana nici lahayn macnaa kama ordi lahayn badankeennana macnaha raggeenna lacagta haystaa waxaan filaa inuu dumarka ay guursadaan laakiin raggeenna lacagta aan haysan waxaa dhibka keenaaya inuu lacag helo rabaa nin kasta marka waxaa leedahay gabdhaha ayaa shuruud ku xiray inay wiilasha lacag yeeshaan lacaga gabdhaha xataa ma dhihi karna waalidkooda shuruudda ku xiray waalidka ka timaada waayo waalidkaas markaa u tagtid qof kasta oo waalidka wuxuu ku leeyahay gabadhayda waxaan ka rabaa sida dhaqanka baadiyo kale 10 geel isuu ku leeyahay farda xataa ima baax 10 geel iska daaya shuruudahaas ayaa marka okay adiga nin dhalinyaro tahay sax kale guurdoonna waa tahay sax waxyaabaha caqabada kuga hoos dhigi kartid way ka hor istaajin karaan guurka oo ilaa hadda aad ka fikiraysid maxaa ka mid waxyaalaha ugu badan ee dhaqaale yari waa aniga waxaan aaminsanahay maanta anoo lacag haysta ilaahay subxaanahu wa ta'aala intuu ii banay inaan guursalaa laakiin halka shuruud iga celinayda waa dhaqaale yari marka sababtaas aad keentay in dhalinyarada guurka ka maartay sax basically saas waa bismillaah magacaygu waa cali cabdirashiid waxa ka hortaagan horta waxa weeyaan marka koobaad inay tahay dhaqaalo bayska marka koobaad waxa weeyaan waxaan garanaynaa guurku inuu yahay mar waxa weeyaan waajib mar waa xaaraan marna waa mubaax oo iska caadi marka intaas oo dhan wada Soomaalina waxaan ka fiirnaa dhaqaalaha day waxaan dhaqaale gaar ahaan Nairobi hadda joogtid lacagta gabadha moogtay dad baa soo koriyay nolol bay ku soo kortay waxa loo baahay gabadha guursataa dhow inaan dharbaana yeelan maanta iyadoo cad markaad soo guursatid taa inaad ka fikirtaa waa laga maarmaan marka waxyaabaha ugu wanaagsan waxa weeyaan dhaqaalaha ba basic noon kara dhalinyarta hortaagay ninka dhalinyarada dhaqaalaha ka hor istaaga inuu shaqaysto Soomaaliya horta waa muhiim sax dadku dee dhaqaalihiin horta isku mid ahayn halkan markaad joogtid waa wadan waa iska qurbanaas meesha la joogo Nairobi qofku salaam dhalinyarta haddaan ka soo qaadno waxa ka shaqeeyaan dukaanada iyo meelo kala duwan 30 kun 20 kun 40 kun guriyihii oo kaliya 45 kun 25 kun shilin gabadh marka 500 shilin ku dhaqmaysa ma jirto adigana mas'uuliyad baa ku saaran aabbaad noqonaysaa baad dhalaysaa
gacal iyo ehel iyo sukayaad leedahay marka noloshii baan saamaxayna runtii taas baan anigu isleeyahay inay jirto waa dhaqaalaha haddaad hesho dumarka magaalada haaf baad qabaysaa lagama hadalka ma jira taas السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دلنير waxa guurku diiday isdhigi karaa xoogo baryahan dambe maadaama guurka aad qaali u noqday zinadina ah oo inay raqiis noqonays mar walba guurka qaali noqdo sababteedana waa taas insha Allah waxa rajayna inay guurka raqiis ka dhigaan si oo insha Allah ummadda Nabi Maxamed Alayhi Salaam dardarkiisa ahaa in oo ummadda is guursadaan si oo ummadeeda u bataan marka insha Allah aad iyo aad waxa ugu hamuuyeen in oo guurka sanadahan soo socdo la yareeyo doono maadaama guurka hadda ii sheeg zinada raqiis noqdo marka guurka qaali noqdo السلام عليكم مقعي وإقرأ على حسن مركع أنا كبلاوي وهرت وحصل دلنيرة دينو جورك يا راضو محل ده دقالة درو ما دد جواد هرتوا دقالة درو سأقنع إلى رسول كحير صلاة الله وسلام عليه من كان منكم الباء فليتزوج عندنا هذا نوحار دقالة درو كان لبعضنا حديه كنا مع الدها دلنيرة دنيرو إسلامين درو dadka badan islaamka 100% oo waxa la dhigi karaa runtii ka fogaadeen dhalinyarada wax xaqiiqo iskaga ma hadlaan qosaan dhihi lahay adiga waxa tir dhaqaaleeyay wiilashu waxay leeyihiin gabdhiha dhaqaale lagu xiray sababtaas guurka maaragtay iskaga dhaaf gabdhaha dhaqaale way ku xiraan gabdhaha ilaan adiga gabadha markaas soo cadeysay mas'uuliyadeedii adoo ilaahay ku saaray ina waajibaadkeeda ka soo baxdid waa adoo wiilka ka soo bixi karin gabadhi inay waa ku qasbantahay inay maxaa la dhahaa بسم الله الرحمن الرحيم أنا عشر مارك هذا ورسمة دلنيرة جورك وحاود جدي بقول كيبة طلوات قاركودنا وحيكون مشغول عن بلوت قاركودنا وحيكون مشغول عن وحبرشوا مركز دلنيرة لما ديكرو بقول كيبة بقول جورك وحاود جدي بلوت يوحبرشوا أما دقالة دري دقال لعن وحاود ديدي كرو فرصة بدن إنه وحبرشة كجرو إنه خات كم قيه وعين كده أو قيله ما أنت جيف مركا وحان إلهي ورجيننا إنه براروغان أي جور كيكسو براروغان سي أولادو أي وأركان dhalinyarada waxay leeyihiin caqabad kala jirto waxay leeyihiin marka wiilasha laga hadlo gabdhaha ayaa maaragtay guurka qaaliyay oo guurkii qaaliyo noqday saasaa keentay guurka ay maaragtay dhalinyarada ka istaagay waxaan u maleynayaa gabdhaha inaysan keeni karin qaaliga waxaa jira wax hobbi la yidhaahdo labada isjecel dhaqaalana kumana xirno baahi jacayl awood jacaylka ka awood badan dhaqaalaha انت اسجعلاتو بقول كيبو 70 ما بدنا حتى 45 50 marka gabdhaha Soomaaliyeed ma dibkaas ma aysan keenin waxa keenay ninka dhalinyarada oo jacaylka ku beeray bismillaah magacay waxa la dhahaa tamaam Ismaaciil Axmed waxaan ka mid ahay dhalinyarta ku nool xaafadda Isli haddii aan fikradday dhigto waxaan dhihi karaa maciishada oo kor u kacday iyo gabdhihii oo qaaliyeeyeen guurkii oo dhaheen wax aan dadka qaarkii awoodi karin iyo dadka dibadda jiraan ama ganacsiyada haystaan oo waxyaabihii ay guur ku bixinayaan kor u qaadeen si aan macnaa waan awoodna camala kadib markaas anii fikir ahaantay taasaan u haystaa وارك ها ويسمرتي لكن أنا أركو حيد قفكن وحارك يروح العق يرله خير العق بقفك أي هذا كورو سعودين كدبنا روحي وكدرتي أو لعقتن أيان فيرني عمل أيان بنينيا وكدب روح العقنا ولا ما تاي وحني لأني كان متقنا قفك سلاد هاي قفكن أيا ونكسن أما أسلاد هاي أدي وكوه بني هاي يا تكو كان لبني لا العق وحنا فيرني أدون أنت سبب يقول لا waxaa saali karta inay gabdhina hoos u dhigaan wiilashiina ayna iyagana xad ka sii bixinin kadibna sidaas la isugu iman karaa dadna kor soo kici karaan hoos u dhigi karaan bismillaah magacaygu waxaa waaye cabdiraxmaan maxamed waxaan ku magac dheerahay siciimka aad baan u faraxsanahay fursaddan aan helay waan nii mahad celinayaa dhammaantiin
haddii aan ka dhibid fikir ahaanteed wixii dhallinyarada u guursan laayihiin dhallinyarada soomaaliyeed horta soomaali allah ha barakeeyo horta dhab ahaantii waayahan waxaa jiro dhibaatooyin badanaa jiro qof walbo wuxuu waddankii dhibaataa ka jirto guurku xumaa qofka markuu nabad haysto oo ii sheeg oo helo wax ku filan masruuf ku filan shaqo ku filan waxbarasho ku filan marka adigu intaa haynin inaad guursato horta aad bay degdeg ku tahay in aad loogu degdego guurka horta wax aad u dhib badan laakiin diinteena waxay qabtaa in la guursado oo si u dhaqsiyaa badan أنا أنت ذو حق وأنا بوفستها because قف في الصوماليا وحرجين إحنا نتمركز ريورتك قف هذا الجو كنا جورسو وحقنا جورك محاسمنا ويلشوا كله حدا يعني جود محاسينا وكله وقت جبها جود حياة بك جورستو حابنا إيماناي أنت جورسن قف فري أتاي نولش هذا فري أو تموت لكن مركز جورستو حيماناي مسؤول بكرس مسؤول waxa uu darto xeetay qofka marka hore anaga in Soomaaliya hadana waxaan u murgaas buufis odayaasha xarka ma dhaxo arkay oday aku qiyaasay 6 jir wuxuu dhibaatada wax ii keenay Soomaalinimada dhabaantii meel ku arkay wuxuu hada Soomaali ahaan lahayn saacadan bilneel baan ahaan lahaa oo nin waxa naqala marka dhibaatada ugu weyn waa buufis aaminsan aniga